bismillahi raxmaan raxiim waxaana wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafi Show waa 12 bisha 8 2026 maalinimo Arbaca qodobada qaybtan aan idinkugu haynana waxaa kamid ah Ruushka iyo reer galbeedka oo dagaal hor leh qarka u saaran iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo su'aal ku saabsan la weydiiyay inuu mar kale xilka madaxtinimada ee Mareykanka uu tartami doono muxuu ku jawaabay ayaad isleedahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar kale waxaan idinka codsanaynaa inaad barnaamijka share iyo like dhahdaan si meel fog uu u gaaro aynu ku horeynaa Ruushka iyo reer galbeedka oo dagaal hor leh qarka u saaran Mareykanka ayaa laba markab oo shidaal qaada oo calanka Ruushka wata kuwaas oo hore cunaqabatayn loogu soo rogay ka iibiyay shirkad fadhigeedu yahay Imaaraadka Carabta labada markab ayaa ciidamada Mareykanka la wareegeen bishii Janaayo 2026 xilli ay ku sii jeedeen Venezuela sida ay warisay wakaalada wararka ee Reuters labada markab ayaa lagu burburin doonaa Hindiya halka biraha laga helana dib loogu adeegsan doono warshadaha biraha lama sheegin lacagta uu Mareykanka ka helay iibka maraakiibtan talaabadan ayaa ku soo aadaysa xilli dalalka reer galbeedka ay soo jeedeen in la qaado tallaabooyin badeed oo lagu qabanayo maraakiibta ganacsiga ee Ruushka qorshahan ayaa waxaa ka mid ah in la wareego maraakiibta Ruushka lana iibiyo xamuulka ay wadaan iyadoo ujeedadu tahay in cadaadis dheeraad ah lagu saaro dhaqaalaha Ruushka isla markaana dakhliga laga helo lagu taageero dalka Ukraine sidee ayuu ugu jawaabay Ruushka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isagoo xiran dharka ciidanka badda Ruushka waxa uu ku dhawaaqay Ruushka in uu si adag ugu jawaabi doono haddii dalalka reer galbeedka ay la wareegaan maraakiibta ganacsiga ee Ruushka sida ay baahisay wakaalada wararka rasmiga ah ee Ruushka ee loo yaqaano TASS Putin waxa uu sheegay in haddii qorshayaashaas la dhaqan geliyo Ruushka si la mid ah ugu jawaabi doono isaga oo xusay in jawaabta Ruushka aysan ku koobnaan doonin meelaha lagu qabto maraakiibta Ruushka balse ay ka dhici karto meel kasta oo maraakiibta reer galbeedka ay ku sugan yihiin waxa uu sidoo kale sheegay in amarka uu siiyay wasaaradda difaaca oo ay u diyaarsan yihiin in ay ka jawaab bixiyaan isla markiiba